gabadha lagu magacaabo Dina Paul oo haysata jinsiyadda dalka Mareykanku waxay asal ahaan ka soo jeedaa dunida Carabta gaar ahaan waddanka Masar iyadoo markii ay 4 jirka ahayd waalidkeed ula hayaantay dhanka dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Texas. Dina Paul waxay hore uga soo shaqaysay aqalka cad ee dalka Mareykanka xilligii uu madaxweynaha George W. Bush iyadoo xilligaa noqotay kaaliyihii ugu da'da yaraa ee ka howlgala aqalka cad xilligaa oo da'deedu ahayd 29 sannadood. waxay kaloo ka soo shaqaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka oo ay ka soo noqotay kaaliyaha arrimaha dibadda ee tacliinta sare iyo dhaqanka. madaxweyne Donald Trump oo ka hadlay arrinta Dina waxa uu ku sifeeyay gabadh khibrad iyo waay aragnimo u leh hawlaha guud ee qaranka iyo adeegyada gaarka loo leeyahay hoggaan lagu daydeena u ah kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta haweenka. halgan dheer ayay Dina Paul u soo gashay inay noqoto jagada xilligan ay hayso ee la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka isagoo aabaheed noloshoodii cusbeed ee dalka Mareykanka ay ka bilaabeen darawal ka ahaa gaari bas ah kadibna uu dukaan ka furtay gobolka Dallas waxayna Dina jaamacadda ka gashay gobolka Texas oo ahayd halkii ay ka bilowday socdaalkeedii siyaasadeed iyo isbeddelkeedii nololeed.